madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan iyo waftigii ballaarnay oo hogaaminayay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa dib ugu soo laabtay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan ayaa ka qayb galay xuska sideedaad ee maalinta quruumaha qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya taasoo lagu qabtay caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Munaasabadaasi ayaa waxaa kaloo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya, madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti, madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo in ka badan madaxda 100 dal oo munaasabadaasi lagu soo casuumay. munaasabadaasi ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu ka waramay sooyaalka taariikheed ee uu soo maray dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waliba sida ay muhiimka u noqotay in munaasabada sanadkan ee maalinta qowmiyadaha dawladda federaalka Itoobiya lagu qabto magaalada Jigjiga. madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu halkaas uga mahadnaqay cid kasta oo kala qayb gashay munaasabadaasi ayaa waxaa ka hadlay oo kale ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn waxa uu ka waramay nidaamka federaalka kaalinta muhiimka iyo waliba wada noolaansho ay kaga jiro dawladda Itoobiya. waxa uu sheegay in maalintani ay tahay maalin taariikhi ah oo ay tahay maalintii dastuurka gundhiga u noqotay ee dawladdaasi Itoobiya. munaasabadaasi ayaa waxa uu ku dheeraaday ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya maalintan iyo waliba qiimaha ay leedahay, waxaana uu ka waramay maalintan waqtigii la aasaasay iyo waliba ujeedooyinka loo aasaasay. waxa uu soo jeediyay guud ahaanba shacabka kala duwan ee Itoobiya in ay mid ahaadaan meelna uga soo wada jeestaan horumarka kala duwan ee ka socda dawladda Itoobiya. waa halkaasi farta ku fiiqay oo mahadnaq ballaaran uga soo jeediyay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waliba shacabkiisa kala duwan ee uu maamulo oo uu soo jeediyay inay halkaasi horumarka ay ka sii wadaan. maruu la hadlayay guud ahaanba shacabka kala duwan ee Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in guusha lagu gaadho nabadda, dimuqraadiyadda iyo waliba wada noolaanshaha. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan iyo waftigii ballaarnay ee uu hogaaminayay ee lagu maamusay xuska sideedaad ee maalinta quruumaha qowmiyadaha iyo waliba shucuubta Itoobiya ayaa intii halkaasi ay joogeen lagu maamusay si maqaamkeedu sareeyo. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisu markii ay soo dhameysteen xuska sideedaad ee maalinta quruumaha qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya ayaa waxa si diiran oo maamuskeedu aad u sareeyo loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Togwa Jaale ilaa Hargeysa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan waxa safarkiisaasi ku welinayay marwada madaxweynaha Marwa Aamine Sheekh Maxamed Shirde, xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, xildhibaano iyo waliba madax kale oo ka tirsan dawladda.